madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la xaqiijiyay inuu ka qayb gali doono shirka qaramada midoobay ee ka dhici doono dalka Mareykanka. dhinaca kale kulan ay ka qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo halkaas uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in ay ka shaqeyn doonaan xoojinta hay'adaha amniga ee ka howlgala deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. warkan waxaa eegaya waryaheena Guleed Cumar Xasan. kulankan u dhaxeeya xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas'uuliyiin ka socotay dowladda Soomaaliya oo horkacaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo maamulka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin ka tirsan ayaa saacadii aanu ka soo gudubnay ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. shirkan oo looga xaarayay shir kale oo la filayo bisha soo socotay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ayaa diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan tan Soomaaliya. shirka kadib ayaa muhiimadda shirku lahaa iyo waxyaabaha sida gaarka looga hadlay waxaa faahfaahin warbaahinta ka siiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. saad arkaysa shirka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiiro dowladda federaalka ka socday xildhibaano iyo madax ka kala socotay safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogayaha qaramada midoobay. waxyaalaha ka wada hadlayna waxay ahayd sida ka muuqata waxa soo socda shirkii la isugu imaanayay Soomaaliya beesha caalamka ku shirayeen xamar bisha dambe hadii alla idmo bilowgeeda. marka wax la isugu yimi bal in kala warqaato diyaar garowga shirka meesha wax marayaan waxa loo baahan yahay la qabto shirka ka hor iyo xog waraysi guud iyo si la yeeli lahaa arrimahaas laga wada hadlayay meesha marayso arrimaha security-ga arrimaha dhaqaalaha arrimaha danafiska arrimo badan oo naga wada dhaxayaan ka shaqeynaa bariyahan ayaan ka wada hadalay si fiican baa noogu soo dhamaaday. dhinaca kale wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qayb gali doono shir la filayo inuu ka qabsoomo dalka Mareykanka oo uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku matali doono Soomaaliya shirka oo ah mid qaramada midoobay ay ku yeelan doonaan xaruntooda fadhiga ee dalkaasi Mareykanka. waxaana dhinaca kale soo hadal qaaday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo uu sheegay in baahiyaha ka jira deegaanada maamulkaas uu bandhigay xubnaha ka socda beesha caalamka. xaaladda Koonfur Galbeed warbixin fiican ka bixin madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaraha iyo arrimahan soo aragnay dhamaanteeyo arrimaha loo baahan la qabto iyo qaybta horumarinta ee gargaarka. marka runtii waxaa shir aad u fiican xog wareystay safaarado badan hadleen wasiirada hadleen wax fiican ka soo baxeen. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shirka weyn soo socda iyo shirarka soo socda Soomaaliya oo ka mid ah kan qaramada midoobay madaxweynaha aadayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis waxa uu soo bandhigay waxyaalaha u baahan yahay gobolka laga qabto codsiina uu soo jeediyay waxa la qabto deegaanka oo u baahan runtii shaqooyin badan oo dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka. marka warbixintii waa la dhageystay annagana waa taageernay insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan la qaban doono hadii ugu dambeyn ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo Baydhabo ku sugan ayaa isaguna waxa uu kulamo kala duwan ilaa xalay ka waday gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xilli shalay maruu tagay Baydhabo oo garoonka Dr. Ayuub boqolaal dadweynaha kula hadlayay ayuu ra'iisul wasaare Khayre shaaciyay in ay ka shaqeyn doonaan dhismaha ciidan tayo leh uu yeesho maamulka Koonfur Galbeed kuwa uu sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka socda deegaanada maamulkaas. isagoo hadalkiisa sii wata ra'iisul wasaare Khayre ayuu dhinaca kalena tilmaamay inay dowladda Soomaaliya waqti badan ku bixin doonto in maamulka Koonfur Galbeed madaxdooda ay ku shaqeeyaan xarunta maamulkaas ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. kala hadalno baahiyada aad qabtaan ku bilaawno sidii hay'adihiina amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aan ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u fur lahayn jidka isku xira xamar iyo Baydhabo haddii Ilaahay yiraahdo. sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah Koonfur Galbeed oo ay ugu horeysa Shabeellada Hoose. waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
uga mahad celinayaa doorkii mugale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajeynayna mar dhow madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo gala haddii ilaa yidhaahdo. inkastoo wararku qaar ay tilmaamayaan in ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdiga wasiirada uu hogaaminaya uu socdaalkooda soo gabagabeyn doonaan maanta ayaa haddana wararka waxaa intaasi ku darayaan in ra-iisul wasaaraha lagu wado inuu dib ugu laabto degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaa uu la filayo inuu ka daafuro shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo dhowr mar dib u dhac uu ku yimid. wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegtay in ardayda puntland loo ogolaaday inay qaadan karaan shahaadada dowladda. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xildhibaan sadiiqa xirsi warfaa oo ay wehelinayaan xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay puntland ayaa xafiiskiisa wadahadal kula yeeshay wasiirka waxbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare iyadoo wadahadalada diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa cabashada ardayda puntland ee shahaadada dugsiga sare. kulanka ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad waxaana wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax bare uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono sida ugu dhow ee ardayda puntland ay ku heli lahaayeen shahaadada dugsiga sare ee dowladdu ay bixiso. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa ayaa uga mahad celiyay wasiirka waxbarashada ballanqaadka ku aadan in ardayda puntland ay heli doonaan shahaadada dugsiga sare isagoo intaasi raaciyay inuu labalaabi doono dadaalka xalka kama dambaysta looga gaarayo cabashada shahaadada ardayda puntland. somalilan ayaa ka hadashay socdaal saraakiil ka tirsan puntland ay ku marayaan qeybo ka mid ah gobolka sanaag. mahad maxamed cabdiraxmaan mahad mutawakil ayaa warkan faahfaahinaya. abaanduulaha ciidamada maamulka gooni sutaaga ee somalilan cabdirasaaq siciid bulaale ayaa sheegay xuduudaha rasmiga ee maamulka somalilan uu la leeyahay dowlad goboleedka puntland waxaana uu sheegay inaysan jirin deegaano xilligan isku darsan wax walbana ay yihiin kuwa cad marnabana aan la dafiri karin xilligan sohdimaha dhuleed ee labadaasi maamul u dhexeeya. maanta ka hadli mayno somalilan inay baran tahay iyo in kale laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaaqa in boosaaso xadku u jiro 15 kilomitir qardhana uu jiro 7 kilomitir garowna uu jiro 5 kilomitir runtii waxaan lahaa baro ogow xafid juqraafikali dalka aad leedahay ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa baro meelaha kale oo taliyuhu lahaa afka ka lahaa deegaano u dhow baan marayaana runtii waxaan lahaa uu qoomamayn doonaa arrintaa iyada wuu qoomamayn doonaa wuuna ogaan doonaa tallaabada laga qaado. runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa reer badaneed waxaan leeyahay deegaanka xingalool iyo nimaan kuu furi dooni iyo kuu rarin bay soomaalidu ku tilmaantaa. dhinaca kale cabdirasaaq siciid bulaale abaanduulka ciidamada somalilan ayaa soo hadal qaaday safar oo ku marayo qaybo ka mid a gobolka sanaag taliyaha ciidanka daraawiishta puntland waxaana uu muujiyey abaanduulka in safarkaas uu ka qowmameyn doono taliyaha. xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah ayaa ka taagan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe. guuleed cumar xasan ayaa mar kale warkan eegaya. sidaan ku helayna wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beeleed ayaa saaka ka jirta deegaano u dhexeeya degmooyinka balcad iyo jowhar kuwaas oo kale ah deegaanada kongo garsaale iyo khalaafo waxaana la sheegayaa in halkaas lagu arkayo ciidamo aada u badan oo maleeshiya beeleed ah isla markaasna aada u hubeysan cabsi xoogan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaas ay dareemayaan. inkastoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan waxay xiisadu salku ka heyso ayaa haddana qaar ka mid a dadku waxay tilmaamayaan in arrinkan la xiriirto dhul beereed ku yaala deegaanadaas oo ay maleeshiyaadkan isku haystaan. waxaa jirta baqdin ku aadan in dagaal uu ka dhaco halkaas inkastoo sidoo kale jiraan dhaqdhaqaaqyo
wadahadal iyo waawaan ku aadan ay wadaan odayaal ka soo jeeda deegaanadaas islamarkaasna halkaasi ku sugan. waxaana intaa wararku ay ku darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lagu wado in loo diro deegaankaas sida ay sheegayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellada dhexe, kuwaas oo la doonayo inay ku baxaan ciidanka maleeshiyaadka ee dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka wada intuusan dagaal ku dhex marin. dhowr mar ayaa qeybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe waxaa kusoo laalaabtay dagaalada u dhexeeya beelaha wadadega deegaanadaas oo inta badan ka dhalata arrimaha dhulbeereedka. halka aada warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabeelle. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu baajiyay heshiis nabadeed oo uu la geli lahaa ururka Taliban ee ka dagaalama dalka Afghanistan. Mr. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu qorshuhu ahaa in uu la kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo hogaamiyaasha sarsare ee Taliban, laakiin waxa uu sheegay inuu baajiyay kulankaasi oo ka dhici lahaa beertiisa raaxada ee Camp David kadib markii Taliban ay qiratay inay fulisay weerarkii dhowaan ka dhacay Kabul kaasi oo uu ku dhintay askari Mareykan ah. madaxweyne Trump waxa uu sheegay maadaama ay Taliban qiratay weerarkaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ah askartooda in isna uu joojiyay wada xaajoodka in la sii wado. arrintan ayaa imanaysa kadib markii wareegii 9aad oo wadahadal ah uu dhex maray Mareykanka iyo wakiilada Taliban. wadahadaladaasi oo lagu qabtay magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar. heshiiska la soo bandhigay waxaa qayb ka ahaa in Mareykanka ay ciidamadeeda uu gaaraya 5400 oo askari uu kala baxo Afghanistan muddo 20 toddobaad gudahood ah. inkasta oo wadaha Mareykanka ee Salman Khaliilzad uu sheegay in ansixinta ugu dambeysa uu leeyahay madaxweyne Trump. Mareykanka waxaa hadda dalka Afghanistan ka jooga askar gaaraysa 14,000. ugu dambeynna wasiirka shaqada iyo howlgabka ee dalka Britain Amber Rudd ayaa iska catishay shaqadii ay haysay, iyada oo sheegtay in aysan u dulqaadan karin in muxaafidiintii daacadda ahaa laga eriyo xisbiga. goor sii horeysay oo toddobaadkan ah ayaa ilaa iyo 22 xildhibaano muxaafad ah laga saaray xisbiga kadib markii ay ku guuldareysteen in ay codadkooda siiyaan dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Boris Johnson. Amber Rudd waxay barteeda Twitterka ku sheegtay inay iska catishay golaha wasiirada ee u shalala dul joogo.